dhankii dumarka sababtoo tahay waa unfair caawa marka inaan dhageysano dumarka ay aqsadaan xaqi u leeyahay ay khudbada ka qayb galaan intaana marka aan u yeerin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka arrintii Cabdishiid sheegay iyo arrintii Sheekh Cusmaan ay ka hadleen labadaba waxaa jira arday badan oo Puntland ka mid ah oo jaamacadaha dhigata waxaa jira marka arday ka qalin jebisay high schoolkii oo jaamacadaha awood weysay marka waxaa jira group halkan Edmonton ka dhisan oo aniga aan ka mid ahay groupka marka waxaan ka bixinaa jaamacadaha ardayda aan awoodin aniga hadda waxaa ii dhamaaday hadda ardaygii labaad oo jaamacadda ka saaran ardaygii saddexaad baan hadda sugayaa laba wiil baan ka baxshay waliba mid waa qalin jabiyo oo jaamacadda islaamiga ka baxay oo hadda maxkamaddu shaqo ka helay waa isoo wacaa sidii ilmo kaana lagu mid ah waxaan ka helay yiraahdo marka wax aad u wanaagsan marka qof bini'aadan aad noloshiisa wax ka bedesho qof bini'aadana kategorida lagu keenay ilmahaas waxa weeyaan waa ilmo ama aabihiis dhintay ama hooyadii dhimatay ama deegaanka uu joogo aan cid u joogin laakiin qualify u noqday inuu jaamacadda galo awood uu waayay inuu jaamacadda galo marka rag dhalinyarada iska qaamay waa guud badan baan nahay marka ardayda waa loo soo diraa marka sanadkiina waxaa ku baxda lacagan gaareen $1,200 waa inta 4 years marka haysan marka waa lacag aad u jaban oo aad qof bini'aadan noloshiisa waxaad ka bedeshay oo reerkiisa ugu kacay oo reerkiisa oo aabihii hooyadii markaa dadkii markaa la joogo oo isaga been u sameeyey nolol sameeyey marka intaas ka dhacay masi wadi karo waa arrin aad u weyn barnaamijkeena baan dib u soo laabto waxaan u yeerayaa xaawo calitaan oo iyadana ka mid ah dadka caawa ka mahad doona kusoo dhawo xaawo ما بفكر ولي فالسوا أبسط ما لقات هاي وضياشي هذا القاضي أيام وحن ربع وحير أو يقعد المية هذا الكيل هذا اللي قدر ورم ويا لكن وحير أيام ربع إن عم قدر حدير الريال وضياشي وحير هذين وعقوب بلاوي هذا الكوام قدر المية إن dadkiisa inuu asagu dhisto loo baahan yahay wareedhaha example bacdin siinayaa dukaamada waaweyn matalan basic food oo kale superstore oo kale I don't know inaad aragteen iyo in kale waxaa yaala boqosyaa yaala waaweyn qof kasta oo adeegta wax ku rido waxa Afrika la siiyo oo gaaladu ay siisaa waa waxa iyo wax la mid ah inagu marka hanala soo gaaray inaynu niraahno mooyaane waa cuduraynu Afrika la qabno inaga keligeen maaha ummaddu iyadaa wax qabsata adiga gaalo ku dhismaysa dalkaaga sida odayaashu ay ii sheegeen waxaa wanaagsan qofka hadda caawa halkan yimid oo reer Puntland ah oo taageerada Puntland waqtigiisa u soo lumiyay I think inuusan bishii inuu $20 bixiyo oo Puntland siiyo uusan diidahayn aniga say ila tahay waliba inta shaqaysa ragga shaqeeya iyo gabdhaha baan waxaan badii lahaa $50 iska jara bishii oo Puntland leedahay waa meesha reebay amuurtaada waa hadalkii Cabdirashiide waa meesha u socotid waa meesha u carabaysay waa meesha ay dhulka gaalada uga carab hada meesha ashki Cabdirashiid shiine sheegay wuxuu laga sheegay yaaliin see ugu cayaaraysaa amuurtaada meesha waa ina quruxsataa mise gaal baadantaa inuu ku qurxiyo waa may gaaladu koombadaas ay meesha ku ridaan bay adduunkooda ku quruxsadaan taas waa leedahay وعقلي وحوقا شهودة دوليلهن إبن لها وصومالي وينغو ما يشا هلا ما
Yes.
dibaa loo dhisay hase ahaatee wixii biyuhu qaaday waa la garanahayay guryaha dumay dad baa dhintay waa la aasay dib waxaan ku noqonaynaa marka tsunamida dib aan ugu noqono tsunamidii waxay dumisay wax ma laga qabtay waxbaa laga qabtay dadkii dhintana waa la aasay sababtoo wixii dumay baa la garanayay guryaha dumay intaa waxaan uga socdaa Soomaaliya burbur baa ka dhacay burburkaasi dhulgariir waa ka darnaa dhulgariirkii haddaba wuxuu dumiyey guryo keliya ma ahayne mujtamacii waxaa ka dhintay waxyaalo fara badan waxaa ugu horreeya oo naga dhintay isu kalsoonidaas u kalsoonaan lahayn dadka dayaal baa ka dhacay waa la soo wada carray xaggaan ku soo watay maxaan dadkan caysina u oran karo dhulkaadii oo siga celin wayne cagtay bixi cabdido ayaa dalamaanays waaya tusaale waxaan ula jeedaa dadkii qaxay dowladda ma soo wadaanin dadkii qaar baa ku noqday dadkii qaar ku noqday tusaale waxay qabtaan baan rabaa inaan sheego keliya puntland garow waa laga xukumaa maanta garow yaa tago loogu dambeeyey garow yaa tegey sheekh cismaan gadaasheeda jooga waanaga lagu tegey thank you cabdishiid lagu tegey in badan naga badan way tagtay aan isbarbar dhigno garowa maanta isu yahay iyo 1991 isu ahaa 1991 garowa dad meeqa ku noolaa tirayaa sheegi kara waa cawoobin haddaan sheegno okay waayo maanta dad meeqana ku nool waayo dadkaa meeshaa u tageen waxaa rabeen bay ka ahaan buug yar aan akhriyey oo uu qoray dr shuket oo dhismihii puntland uu uga hadlahayay oo hadda jooga horumarinta nabadgelyada puntland ahayd baan u malaynayaa buugkuu qoray wuxuu ka sheekeynayaa puntland marka la dhisayey waxay naga mudan yihiin dadkii puntland aasaaskeedii lahaa madaxdii cabdullaahi yusuf ugu horreeyey allaha naxariisto iyo isimadii uu ugu horreeyey islaan maxamed allaha naxariisto labadoo maanta waxay hadlayaan naga hooseeya laakiin waxa la taaban kare looga tagay ducay naga mudan yihiin waa mau ducaynaa waayahay waxay qabteen maantaan ku raaxaysanaynaa marka inagu haddaan waxa qabanno dad inay ka dambeeyaa ku raaxaysan doona ducaan helayna murti hoodaad u leedihi caawadaad baa dhahaysay waxa qabadna maxaa u leeyihiin ma isku kalsoonaan karnaa wax ma qabsan karnaa gaari haddaa wadid markaadna xadid shil baa gelaysaa laakiin haddaadan dhixin aad sadkaysid meesha u socotaa tegaysaa marka ma isku kalsoonaan karnaa okay waxaa inoo badana waxqabad iyo howsocosho waxaan ku darsanayaa intaa gadaasheed haddii aanna wax qaban cid waxay noo qabanaysaa ma jirto gurigaaga haddaadan dhisan intaa haddaan isku raacnay qofkii aanan bixin contributionkii laga rabay soomaalidu qofkii qaaraanka ka haraa waxbay ku qortaa waxaasa ku qorayna laakiin waxaan la xisaabtamaynaa qofkii aan u dhiibnay cabdishiid waa la xisaabtamaynaa maxaan idinla xisaabtamaynaa waxaan rabnaa maamul wanaag hufnaan cadaalad waa la sheegay cadaalad haddaysan jirin nolol ma jirto cadaaladdu ma ahan oo keliya maamulka keliya ee madaxdana ka raba innaga xataa cadaalad baa layna ka rabaa cadaalad innagana laka rabaa madaxdu waxayna ka mudan tahay inaan liiska saarno weeye marka waxaan madaxdu naga rabeen liiska saarno waa la xisaabtami karnaa laakiin waa kula xisaabtamaya waxna bixin mayo taas waa caqliga looga soo tegay shimee okay intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga wararta Edmonton Soomaalida reer Puntland ku nool waajibka saaran haddaan garanay Soomaalida guud oo Edmonton saaran deegaankeena ma ka tashan karnaa yaa noo maqan yaa noo shaqaynaya yaa noo xisaabtamaya okay doorasha ka socota magaalada mar dhow bay dhacaysaa in September bay dhacaysaa maxaan ugu talagalay ninka xafiiska yimaada maanta haddaan ala xisaabtamana aan u codeen barri walla albaabkiina laga furay waxa aqoon-yahanaa ku gabay jirnay professor cali ugu horreeyey wuu guuray aqoon baan qabnay malaha kan isku hadlaynayna waaya waxaa inoo badana deegaankiina ka shaqayno laakiin halkaanaan joognaa meeshaan joogno haddaana wax ka qabo wax qaban ma qabayno waxaa leeyahay hadalkii ahaa think locally think globally and act locally halkaan baa inoo huran qabrigana diyaarsano intii noqonaysa allaha nagu geliyo waad mahadsantihiin waxaan kusoo dhawaynayaa cayna dere aniga iyo yaraalka wadada hadda waxaa la soo gaaray qaybtii dayada waxaan u yeerayaa horey waa lagu sheegay barnaamijkan inta badan waxaa ka soo shaqaysay dhalinyaro sanadkan wixii ka dambeeyana
وعلى ما أنا عين بمشان بودي كما الله يصوتي ضمير على ولي بسوا على رأي بعض مدة اللي هو تاجين نقول مركز this is the last and وحنوير يا نبغى الدورة ضميرة أو لنا بيعز المحيطين أو لونا على سكرنير محيطين سبيو وحاول فرحت بقى مطلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm last but not least. marka horeysa waxa weeye odayaashu waxay noo gadaal mariyeen waxay rabaan wax kasta inay noo gadaal mariyaan saas marka horeysa ilaahay waa maadka marka waxaan mahadcelinayaa dadka soo qabanqaabiyay xafladda sharafta waxaan kaloo mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay oo isaga yimid meel kasta waxaan salaamayaa hooyooyinka aabayaasha gabdhaha wiilasha dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan ka soo qaybgalay waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlahaya afka ururka dhalinyarada soomaaliyeed khaas ahaan kuwa ka yimid gobollada puntland waxaan rabaa hambalyo aan halkan ka macaadahay inaan uga diro dowladda puntland oo xilliga ay ka soo wareegtay 16 sano markii la aasaasay puntland 1998 bishii sideedaad waxaan leeyahay hambalyo ummadda reer puntland meel kasta joogtaan waxaan salaamayaa madaxda puntland khaas ahaan madaxweynaha professor cabdiweli maxamed cali gaas waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa soo dhaweynay gabaygaagii iyo go-aankaagii waxaan salaamayaa shacabka reer puntland oo jooga dalka gudihiisii horumarka iyo cadaaladda iyo nabadda puntland ay ku faanaysa waxaa lagu gaaray shacabka iyo ilaahay weynaa waxaad tihiin dad fiican oo nabad jecel waxaan leeyahay waa inaad dowladda ula shaqaysaan sida ula shaqayn jiray dowladihii hore si loo gaaro 5 sano oo soo socda waxaan adeegsanayna waxaan salaamayaa shariicada puntland oo ku nool dalka dibadiisa khaas ahaan waxaan la hadlayaa ganacsatada maalgashanaya kenya zambia tanzania iyo meelo kale waxaan leeyahay dalkiini maalgashada dowladdiina cashuurta siiya dadkiini lacagta siiya ninka kenyaanka oo gabadha soomaaliga oo mulasa ku xiraya xabsiga oo buudka kula tumanaya mushaarka wuxuu ka qaataa ninka soomaaliga cashuurta laga qaado runtii waa wax laga naxo oo farxun waxa weeye ninka wuxuu la mid yahay nimanka falastiin ku bixinaya carabta oo bixinaya falastiin lacagta ku bixinaya in la laayo iyo isagu more different waxaa leeyahay marka aamina dalkiini oo ku laabta oo maalgashada oo asaga waxaa u baahan tihiin keena oo asaga sharaf ku yeesha saabiga wixii ka dhacay waa dawlad isticmaal shan boqol oo ku maalgashaday waddanka baa askari intuu halkaa qabtay buu wadada ku jidaya wax sharafa kuma leeyahay waddan kale waddankaaga waa sharaf ku leedahay waxaan salaamayaa dadka wax bartay oo jaamacadaha uga baxay waddamadan waxaan leeyahay for example madaxweynaha puntland professor cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu ahaa nin jaamacad ka dhiga dalka maraykanka mushaar fiican kuma qaadan jiray wuxuu ka doorbiday inuu dadkii sii caawiyo ilaahayna waa la gargalay waxaan u baahanahay 200 500 oo qof oo jaamacada ka baxay ciyaalkiinii xaasaskiinii waxay joogaan waddamadan waxay haystaan firi caafimaad waxay haystaan waxyaabo kasta oo u baahan yihiin dad waxaa jira jaamacad dhiganaya oo aan qalinka garan karin waxaa loo baahan yahay inaa caawisaan at least bishii ama halkii sano 6 bilood inaa firi kusoo gudtaa jaamacadaha waa iga tawa waxaan salaamayaa dhalinyarada maadaama aan ku hadlayo magacii dhalinyarada soomaaliyeed oo kusoo koray waddanka ama kuwa ku dhashay nasiib darro maalin wiil baa la kulmay waxaa xagee ka timid wuxuu yidhi aan from Toronto waxaan isweydiiyey oo ka naxay isagoo dad Toronto ka yimid ilmuhu dhal doona xagee ka imaan doona shabiibku ka imaan doona shabiibku dad Soomaaliya nahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay dhul baan leenahay sharaf baan leenahay af baan leenahay waxaa loo baahan yahay dadka waalidiinta ilmaha dhalay inay ku ceshaan dalkii si ay u bartaan dadkoodii iyo dalkoodii iyo meesha ka yimaadeen waxaan la hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa wax laga xishoodaa maxaa naga qaldan dhalinyaro bes weydiiyey dhalinyarada soomaaliyeed oo waxaa weeye waddanka jooga kuwii gudaha joogay ilaa 1991 isbaarada waxa dhiganaya oo dadka loo adeegsanaya waa dhalinyaradii waxaa soo dadka ku gowracayaan waa dhalinyaradii badda wax ku dhammaanaya waa dhalinyaradii waxaa kanada xabsida ka buuxa waa dhalinyaradii maxaa naga qaldan bes weydiiyey
waxaana si daraa ku 980 ninka xildhibaanka Soomaaliya ka ahaa ilaa hadda mixnaayo oo wax bedel u waayay maxaa keenay waxaas dhalinyarada Soomaaliyeed aan malahan marwaan ay wax qabsadaan inay wax noqdaan marwaan kii dalka gudihiisa jooga wuxuu rabaa soo carab lahaa kii halka joogay kii shaqeystaba ka shaqeysan iska wadaa kii shaqeysta 2 ku shaqeysta xagaa soo tagaya meesha shaqada iska fariisanaya wuxuu qabaa inuu waxa weeye adduun soo dhimanay saas ma aanu saaxiib waxaa loo baahan yahay inaan dad noqono dad baan leenahay annaga halkaa baan joognaa haddayna aan isqaano waddanka isu qaanin kuwa xagga joogaan soo cararaan waxaa imaanaysa 120 milyan oo geestan ku haya iyo 70 milyan oo geestan ku haya inay ku ruqaansadaan waddankeennii hadawna qariirada Soomaaliya laga tagto way imaanaysaa waayo waddanka annaga iska هذا مدحوينها قلت لها وكتير أنا يلا صماتي مدحوين أسأل قوي ودك بحاول يرحم واحد فكرة واقعية واحد ولا فكرة واونتين بحاول ودك ويسكت أيام أنا أسأل وحن كذا على ضد اليوري شخص شنو لو أتصل ولا سلين هيو المهم نروح على الأحيان بوصرة أو إسقاطيس يتريب وكتير هذا أنا وعلى صدرها أدون بوحة وسقاط وحنك هذا وسط المتربون كارتين أبغى أقول يهودا سكان أنا قا اليوم الصومالي أنا هاي مالو يهودا صاحبنا هاي وأخوينا يشتري أخوينا هاي أو عارفني وبالكار يعني ولا هذا ولا يلا يضدك الصومالي كارد ويقول لي وقت ما هي كذا وقت ما هي كذا ما كنت على واحد يقول أنا كنت صغير وقت أي قبل فيه ومنها كف عيني تصور تقول سوي عيني لكن ممكن يقبل وقت وايد لكن لازم وقت وايد فهو على يحصل رمتي ذلك عملها إسكال ما أنت يرد ذلك عيبان ما عند يرد بريم من الناس قال هذه أنا مسلم ما قال هذا رتب من هذا المهم وقف عن هذا مثل جوانا سكت الشديد والله قريبا أندريا ذلك حاجة جوا على أنا مسلم طبتي أنا يا مامي أنا قبل أن تقولنا وأنا أسأل الله لسان تقولون معين قربنتي وحبرشتي أمني في هذا الأمر اللي يربي قفوا فكر كراوسكيري يعني أروح الله أما ذاك وحقته قفوا بيحكموا لي هاي وكروا أنا بحاول ترتيب أما فاهم الكيسة رش أسمع وأبغى أمر وأبغى تسعوا على وسع كبيرة أنا كشخصي دمت ذلك لضدك هذا كي يكون مسوق كبيرة dhalinyaro aan noqono dad leh isku xiraan ma aha dhalinyarada kaliya ku tagaan laakiin dhalinyaro Soomaaliyeed dalka anaga aska waxaa loo baahan yahay sanadka dib u noqon lahayn wuxuu ka bedel lahayn dad u noqon lahayn haddii kale waxa weeye si dadkaas oo kale waxa ku dhacsa anaguna meel kale inaan ka nimaano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh korneel aad baa u maadsantahay hadda kadib adaa meeshan istaagay la socdo qaybtaanadii waa inoo dhamaatay waxaan ku wareejinayaa qaybtii dhalinyarada iyaga inay soo istaagaan halkan si ay qaybtooda ula wareegaan